waxba looguma yaala dowladda Iran sida ka muuqanaysa hadallada kala duwan oo ay sii jeedinayaan waxay u agiheen niman difaac meel ku og oo u diyaar garoobay dagaal muddo dheer socon karaya waxaana qaarkood hadda saraakiisha sarsare ee wadanka Iran ay bilaabeen in ay si weyn ugu jawaabaan dowladda Mareykanka isla markaana ay ka hortagaan damaca Washington ee gobolka Bariga Dhexe taliyaha sare ee ciidamada Qudus ee hoos yimaada ciidamada ilaalada kacaanka ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran ayaa ku dhawaaqay in aysan suuragal noqon karin in ay banaanka ka istaagaan arrinta Falastiiniyiinta waxa uu leeyahay waxba inooma kala dooriyaan shacabka Gaza jooga iyo kuwa magaalada Tehran jooga oo aan rabno labadaba inay badbaadaan haddaba maxay tahay fariintan adag uu dirayo xilli maalintii shalay ahayd ra'iisul wasaaraha nidaamkaasi Benjamin Netanyahu uu ku dhawaaqay waa sida uu yiri in uusan waliga aqbali doonin dowlad la yiraahdo Falastiin oo gobolka Bariga Dhexe ka dhalata loolan iyo waliba isdhaafsiga hadalla culus ayaa hadda bilaabanaya haddii aan eego qodobada kale sargaal sare oo ka tirsanaa nidaamka Israa'iil ee Mossad loo yaqaano sirdoonka muraha dibadda ah waxa uu leeyahay dunida waa la madadaalinayaa laakiin Turkiga iyo waliba dowladeenu ma dagaalami doonaan muxuu yahay wargeyska ama waraysiga la yaab kale uu siiyay telefishinka RTA la yiraahdo dalka Ruushkana laga leeyahay oo arrintaasi aad uga hadlayo xilli xiisada gobolka ay aad u sii kululaanayso arrinta wadanka Syria ah meel adag ayay taagan tahay oo waxay u muuqataa inay sii murgayso xilli Asad Shaybani oo ah wasiirka qaarajiga ee dowladda Dimashq uu raadinayo sidii xal kama dambaysa looga gaari lahaa arrinta loolanka Ankara iyo Tel Aviv u dhaxaysa ee loolanka wadankooda uu la xiriiro General Asim Munir oo ah taliyaha ciidamada qalabka sida ahna ninka ugu awooda badan wadanka Pakistan ayaa la qorsheynayaa in uu dhawaan gaaro wadanka Iran halkaasi uu kula kulmi doono madaxda ugu sareysa ee wadankaasi ninkan waa shakhsiga sida gaarka u haya galka wada xaajoodka ee labada dhinac ee hadda wada hadalka galaya wasiirka muraha dibadda ee wadanka Iran Dr. Abbas Araghchina waxa uu leeyahay Mareykanku waa iska hadlaya ee cunaqabatayn dhaqaale waxba inooga qaadi maayo xaaladda Faransiiska iyo Iran mar kale ay cirka isku shareertay haddaba gobolka Bariga Dhexe xagee u socdaa xageesa wax ku dhamaan doonaan qodobadaas ayaan khiyaaray ku eegi doonaa barnaamijka meel kasta oo aad joogtaan magaciina ayaad ku bilaabi kartaan aragtida isla markaana qaybta hoose ee commentska ayaad inoogu soo qori kartaan maxay Iran isku halaynaysaa adigoo su'aashaasi ka jawaabaya waa 23 doonin marka la fiiriyo sida xaalka gobolka Bariga Dhexe uu sii xoogeysanayo daqiiqad ka dambaysa isla markaana quwaduhu ay isugu bambaxayaan taliyaha ugu sareeya ciidamada ilaalada kacaanka gaar ahaan qaybta loo yaqaan Qudus ee arrimaha dibadda ka howlgasha ee dalka Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran ayaa jawaab aad u kulul waxa uu siiyay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu kaasoo shalay ku dhawaaqay waa sida uu yiri in uusan aqoonsan doonin dowlad Falastiiniyiintu ay leeyihiin taliyahan oo ciidamadiisu ay aad u xoog badan yihiin isla markaana gobollo badan oo caalamka ah gaar ahaan Bariga Dhexe ka howlgala waxa uu leeyahay arrinta Falastiiniyiinta iyo waliba tan dowladda Iran waxba isma dooriyaan oo annaga waxaan nahay danjirayaal arrintaasi u qumay oo waxaynu doonaynaa dadkaasi inaanu badbaadino taliyaha ciidamada Qudus ee ilaalada kacaanka Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran Ismaaciil Khani ayaa sheegay in qadiyadda Falastiiniyiinta ay tahay arrin nool boyri oo joogto ah oo aan isbedelayn isla markaana ay sii jiri doonto ilaa laga gaaro guul dhameystiran oo shacabkaasi ay ku naaloon doonaan boyri guul la isku halayn karo Khani ayaa sheegay in qadiyadda Falastiiniyiinta laga bilaabo badda ilaa wabiga ay maanta ka muuqato si ka sii xoog badan waqtiyadii hore waxaana uu yiri in rajada laga qabo xaqiijinteeda ay tahay mid aan la iska indhatiri karin oo waligood noolaanaysa waxa uu sidoo kale sheegay si ballaarinta deegaanada Israa'iiliyiinta iyo qaadashada dhulka waxa uu ku tilmaamay
dambiye ay ciidamadoodu geysanayaan dhulka Falastiiniyiintana ay ka wadaan isku day kasta oo Israa'iil ay qaatan ay tahay xaaladda la aqbali karin oo jawaab laga bixinayo waa sida uu hadalka u dhigay taliyaha ciidanka Qudus waxa uu intaa ku daray in tallaabadaasi aysan qarin karin buu yiri waxa uu ku tilmaamay guuldarrooyinka istiraatiijiga ah ee dhacay 7 Oktoobar 2023 weerarkii loogu magac daray dabaysha Aqsa oo kooxaha Falastiiniyiinta ee gacansaarka la leh dowladda Iran ay weerarka xoog leh ku jiteeyeen nidaamka Israa'iil dhinaca waxa uu kale ka soo horjeeday mashruuca deegaameynta waxana uu sheegay isagoo xusay in mashruuca deegaameynta Israa'iil ee loo yaqaan EHAL kaas oo ku yaala oo ka wadaan buu yiri bariga Qudus ay tahay mid aan la aqbali karin qorshaan ayaa ka kooban dhismaha 3412 guri oo cusub waana mashruuc ku fidsan buu yiri dhul qiyaastii gaaraya 12 kilomitir oo laba jabaaran oo qayb ka ah maamulka degmada Ma'ala al-Damumin ee dhulka Falastiiniyiinta mashruucan ayaa waxa uu tilmaamay haba yaraatee inaan la aqbali karin oo ay si weyn uga soo horjeedaan dowladdiisa aadna ay u diidi doonaan inay sii socoto dalka Syria ayaa noqday barta loolanka nidaamka Israa'iil iyo dowladda jamhuuriyadda Turkiga waxana ay hadda xaalka u muuqanaya wadankaasi inuu raadinayo jiha uu kaga badbaado dagaal suuragal ah oo muddo dheer socon karaya sida ay doodooda u dhigaan xaaladda wadanka Syria ayaa sii murgaysa iyadoo xiisada u dhaxaysa Israa'iil iyo Turkigu ay si weyn u sii kordhayso kadib weerarkii Israa'iil ay ku qaaday saldhigga diyaaradaha Abu Adhur ee ku yaala gobolka Idlib ee waqooyi galbeed wadanka Syria wasiirka amuraha dibadda ee wadanka Syria Asad al-Shaybani ayaa sheegay in xiriirkiisa iyo wada hadallada u dhaxeeya Syria iyo Israa'iil ay go'een kadib weerarkii lagu qaaday saldhigga Abu Adhur 18 bishan aynu ku guda jirnay Agoosto al-Shaybani waxa uu sheegay in mudnaanta koowaad ee dowladda Syria ay tahay in la joojiyo weerarada Israa'iil ay ka fulinayso gudaha wadanka isla markaana la qaado tallaabooyin lagu dhisayo kalsoonida dhinaca kale hay'adda warbaahinta Israa'iil ayaa soo xigatay ilaa amni oo sheegaya in Tel Aviv ay doonayso in Turkiga uu bedesho ama ay u bedesho cadow iyadoo isla markaana baa la yiri shaaca ka qaaday in labada dal ay leeyihiin janalo xiriir qarsoodi ah sida hadalka loo dhigay xiisada labada dhinac waa Israa'iil iyo waliba dowladda Turkiga ayaa hadda u muuqanaysa mid xakamaha iyo xarkaha goosanaysa labadaba hasaatee sargaal sare oo horey uga tirsanaan jiray hay'adda sirdoonka dibadda nidaamka Israa'iiliyiinta ee Mossad loo yaqaano ayaa wareysi gaara u bixiyo waxa uu ku tilmaamay in aysan dhaweyn dagaal rasmi ah oo dhaxmari kara dowladda Turkida iyo waliba nidaamka Israa'iil ee gobolka bariga dhexe keena ee halkaasi fadhiya waxa uu leeyahay suurtagalnimada dagaal dhaca xilligan ma dhow dhinacyaduna midba midka kale ayuu tusaya awoodiisa hasaatee ma jirto rarbaaxyo la isu geysan karo sargaal hore uga tirsanaa hay'adda sirdoonka Israa'iil ee Mossad ayaa sheegay in aysan u muuqan dagaal toos ah oo dhaxmari doona Israa'iil iyo Turkiga inkastoo ay sii kordhayaan xiisada u dhaxaysa labada dhinac ee la xiriira baa la yiri xaaladda wadanka Syria Oded Eliam oo horey u ahaa hogaamiyaha waaxda la dagaalanka argagixisada ee hay'adaasi ayaa wareysi uu siiyay idaacad Israa'iili ah oo la yiraahdo 103 FM ku sheegay in dagaalka u dhaxeeya Turkida iyo Israa'iil uusan ahayn mid hadda aad u dhow oo lagu degdegi karayo waa sida uu leeyahay waxa uu sheegay in labada dhinac midna uusan doonayn inuu galo iskoorimaad military gaar ahaan xilligan Eliam ayaa sidoo kale sheegay in madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan uusan u dhaqmin baa la yiri damaca ku salaysan soo nooleynta boqortooyadii Cuthmaaniyiinta waa sida uu doodiisa u dhigay balse uu fulinayo buu yiri waxa uu ku tilmaamay qorshe muddo dheer soconaya oo lagu ballaarinayo saameynta Turkiga ee gobolka bariga dhexe sargaalkan hore ee Mossad ayaa ku andacooday in qorshahaasi uu ku salaysan yahay waxa uu ugu yeeray ballaarin tartiib ah oo saameyn ku leh
meelo kala duwan oo gobolka oo iyo waliba Afrika isagoo xusay in dalalka iyo deegaano ay ka mid yihiin Liibiya, Soomaaliya iyo qaar ka mid ah wadamada gobolka iyo marinka Gaza dowladda Turkiga ay hadda ku leedahay saameyn toos ah oo ballaaran isla markaana ay si gaar ah u taabanayso buu yiri nidaamka Israa'iil. waxa uu intaa ku daray in Erdogan uusan qatar gelin doonin qorshaha isagoo galay baa layidhi dagaal isagoo galaya dagaal toos ah oo la yeeshay Israa'iil taasi uu ku tilmaamay mid ka mid ah dalalka ugu awoodda badan gobolka bariga dhexe waa sida uu ku tooqay. Ilyam ayaa qiimeeyay suurtagalnimada dagaal u dhaxeeya Turkida iyo Israa'iil inay tahay mid aad u hooseeya kuna dhow in aanay dhici karin baa layidhi marka hadda la fiiriyo sida xaalka ay wax u socdaan. sarkaalkan hore ee Mossad waxa uu sidoo kale sheegay in Israa'iil buu yiri waa sida uu hadalka u dhigay ay si sax ah ugu dhaqantay markii ay dejisay waxa uu ku tilmaamay qadcas oo amni oo la xiriira dhaqdhaqaaqyada military ee ka iman kara wadanka Syria. hadalkan waxa uu ku soo aadayaa xilli xaaladda gobolku uu hadda u muuqanayo mid aad u sii labalxaadsanaya. wasaaradda amuraha dibadda ee wadanka Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran ayaa ku dhawaaqday in dagaalka dhaqaalaha ee dowladda Mareykanku ay ku qaaday gudaha wadankiisa uusan ahayn mid sii jiri karaya balse dowladdiisu ay taqaano sidii ay uga dabaalan lahayd. Dr. Abbas Araghchi wasiirka amuraha dibadda oo arrintaasi ka hadla waxa uu yiri dowladdeenu ma aha mid dhinaceeda dhulka la dhigi karayo oo isdhiibaysa si kasta oo Washington ay u samayso buu yiri dadaal xad dhaaf ah. wasiirka amuraha dibadda ee wadanka Iran Dr. Abbas Araghchi ayaa sheegay in Tehran ay taqaan baa layidhi sida loola tacaamilo waxa uu ku tilmaamay dagaalka dhaqaalaha ee dowladda Mareykanku ay ka shaqaynayso. waxaan ognahay sida loola tacaalo dagaalka dhaqaale ee Mareykanka kaas oo ku dhisan baa layidhi qorshayaal hore loo isticmaalay oo soo noqnoqday kama baqayna hanjabaadaha cunaqabataynta dhaqaale iyo dhammaan tillaabooyinka Mareykanka kuwaas oo ilaa iyo hadda dhammaantood baa layidhi fashilmay waa sida ay dooda u dhigeen. wasaaradda amuraha dibadda ee wadanka Iran ayaa sidoo kale ka hadashay tillaabo ay qaaday dowladda Faransiiska taas oo saraakiil diblomaasiyiin ah oo ka shaqaynayay safaaradda Tehran ee Paris oo looga soo saaray gudaha wadankaasi Faransiiska. dowladdu waxa ay tilmaantay tillaabada la qaado inay tahay mid gunnimo ah marka la fiiriyo oo si gaar ah loo maagay ciidamada saraakiishaasi diblomaasiyiinta. wakaaladda wararka ISNA ee dalka Iran oo xiganaysa afhayeenka wasaaradda amuraha dibadda ee wadankaasi Ismaaciil Baqai ayaa sheegay in Tehran ay tallaabo ka qaaday safaaradda Faransiiska ee ku taala Tehran kadib markii ay ku eedeysay in ay dhaaftay baa layidhi waajibaadkeedii diblomaasiyadda. Baqai ayaa waxa uu tilmaamay waxaynu qaadnay tillaabooyin lagama maarmaan ah kadib markii aan ogaanay in safaaradda Faransiiska Tehran ay ku howlan tahay wax ka baxsan waajibaadka iyo xeerarka cad ee axdiga Vienna ee xiriirka diblomaasiyadda. falalka safaaradda Faransiisku waxay ka dhigan yihiin baa layidhi faragelin lagu sameynayo arrimaha daaqiliga ah ee dowladda Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran. waxaan si rasmi ah u sheegnay in laba diblomaasi oo ku kacay xadgudubyadaasi ay tahay in ay ka baxaan isla markaana aan loo ogolaan doonin in ay dalka ku soo laabtaan baa layidhi. tillaabada Faransiisku qaaday ee ah in uu ceyriyay laba diblomaasi oo Iiraani ah ma laha wax sabab oo sharci ah taas oo u muuqata dowladda Jamhuuriyadda Islaamiga Iran in ay ku dhaqaaqday tillaabo argoosi ah oo dowladdaasi Faransiiska looga argutay. taliyaha ciidamada wadanka Pakistan General Qasim Munir oo ah ninka ugu awoodda badan wadankaasi isla markaana maamula galka wada xaajoodka dowladda Mareykanka iyo waliba ee dalka Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran ayaa hadda ku dhawaaqay in uu safar ku tagi doono magaalada Tehran xilli laga baqayo isbeddello waaweyn oo cabsi leh oo ku saabsan dagaalka gobolka bariga dhexe mar kale inuu dib u soo laabto. afhayeenka wasaaradda amuraha dibadda Iran Ismaaciil Baqai ayaa hadda ku dhawaaqay
in taliyaha ciidamada dalka Pakistan General Asim Munir uu isniinta booqan doono magaalada Tehran isagoo hogaaminaya wafdi rasmi ah. wasaaradda amuraha dibadda Iran ayaa sheegtay in booqashadan ay ujeedadeedu tahay xoojinta iskaashiga laba geesoodka ee u dhaxeeya Iran iyo Pakistan iyo sii wadida dadaalada Islaamabad ee lagu taageerayo nabadda iyo amniga gobolka. intuu booqashada ku joogay General Munir ayaa la filayaa in uu la kulmo saraakiil ka tirsan dowladda iyadoo kulamada looga hadli doono xaaladihii ugu dambeeyay ee gobolkaasi. booqashadan ayaa ku soo beegmaysa xilli gobolka bariga dhexe uu wajahayo xiisad iyo waliba xasarad siyaasadeed iyo mid military oo isisiyo taraysa, iyadoo tan ay Pakistan ay Iran labadaba ay ka wada hadli doonaan baa layidhi arrimaha diblomaasiyadda. khiyaarta ay nala socoto ay faalayntii iyo tabintii wararkii ugu waaweynaa ee gobolka oo aad ka daawanayseen channelka Cabdicasiis Barrow. intaas ayay galabta ku ekaan doonaan, laakiin su-aasheena maanta waxa ay noqonaysaa Iran waxay u muuqataa inay u hanjabayso Israel iyadoo gobolka bariga dhexe looga baqayo dagaal kale oo xoog leh. haddaba maxay tahay waxyaabaha Iran ay isku haleynayso ee la xiriira ballaarinta dagaalka, iyadoo hadalka General Ismail Khani loo arka hadda inuu yahay mid aad u xoog badan marka la fiiriyo sida uu wax u wado. soo dhawaada khiyaarta ay nala socotay idinkoo magaceena iyo meesha aad joogto ku bilaabaya aragtideena qaybta hoose ee faallada ayaad inoogu qori kartaan idinkoo cabiraya jawaabta su-aashaasi. fadlan si aad macluumaad iyo warar kale oo dheeri aad u heshaan ha hilmaamina inaad YouTube-ka subscribe saartaan, muuqaalka la gareysaan, aragtidana aad hoos dhigtaan. haddii aad Facebook nagala socotaan